noloshu alxayaa kullahaana waa challenges nolosha gebigeedu waa caqabaad nolosha fadhiga cid ku dherigtaa waa yartay noloshu waa dadaal iyo caqabad la rabaa in laga tallaabo ee keebaa diyaar u tahay asal ahaana ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi wain tutic akthara man fi lardi yudiluka can sabiili illah wain tutic akthara man fi lard dadka inta badan haddaad maqasho jidka ilaahay way kaa luminayaan sociologuna de maanta waxay noo tilmaamaan bulshooyinka elite group yar koox yar baa hogaamisay bulshada weyne xaggii loo kaxeeya unbay u dareertaa dhanka loo wado uun waa shibher theory bay yidhaahdaan theoryga xerada xoolaha waxay dadkaba ka dhigaan inay dad xero ku jira yihiin xoolaha uun xaggii loo sahangeeya ama loo kaxeeyo u dareera kolba inay yihiin ilahina wuxuu le waa in tutic akthara man fi lardi yudiluka can sabiili illah qur-aanka ilaahay wuxuu inoogu tilmaamayaa tajaaribtii ummadihii hore iyo wixii ku dhacay iyo siday qaar diintooda u haysteen iyo qaar siday u milmeen waxaa kaloo qur-aanka ilaahay inoogu tilmaamayaa qurbadii koowaad ee muslimiintu siday uga baxeen marka tajribo ka horreysay islaamkan aynu hadda haysanno oo taariikhiya qur-aanka way ku taallaa waxaa kaloo qur-aanka ku yaala tajribadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii oo dee iyaba dhul muslim may joogin yani nebigu markuu soo baxay maka dee gaalaa deganayd madiinana gaalaa deganayd carabina gaalay ahayd midhmidh baa dadka u islaamay dhowrkaa qof oo u islaamiya isagu waxay ahaayeen mujtamac yaroo koobanoo ku dhex nool mujtamac ka gadisan oo diin ka gadisan haysta afka way wadaagayeen laakiin dhaqan iyo diin ka gadisan oo jaahiliya ah haysta marka lababa waxaynu u baahanay inaynu wax ka baranno taariikhdu qur-aanku ka warramayee ku saabsan dadkii mashaakilkaasi qabsadee ka soo baxay ama ku dhacay inaynu si fiican u daraasayno saxaabadii nebiga iyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam gurbat alislaami aluulaa siday uga baxeen waayo التمسك بالدين والاعتزاز به في وقت القربة الرفض معها ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حكت المامية صحيح الجامع الصغير عن أنس بن مالك حديث كصاروري يأتي على الناس الزمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر ماشي إنه تشالنج يبو النبي قلت المامية ضدك وقت باكو إيمان دونا قفكو الدين تيسا إنه هايستو كل جنادو أي لم يتنين دحول هايستا يعني الحل طبعا يناد قبطها وتشالنج هذاك وقت السيدة الدين تكون نقون دونتا إيمان دونتا أما حديث ابن مسعود ورينا إن من ورائكم زمان الصبر اللي تمسك فيه أجر 50 شهداء منكم معلومات دنبايا قف الدين تيسينو كل جناده ولم يدي كونتن إذن كانت كامدة من نبغوت المامي سيدة أوجد قرآن إلهي وحكا ورما إن من رير بنو إسرائيل ليرادا يهود reer banu israa'iil waa mujtamacyada ugu badan ee ilaahay kitaabkiisu taariikhdooda ka warramay taariikhda reer banu israa'iil xumo iyo samaba way leedahay reer banu israa'iil nebiya ka dhashay nebiyo badan oo qur-aanku ka tilmaamayo dee israa'iil waa nebi yacquub inankiisiyo maxay ah nebi yuusuf walaaladii hooyana culamadu badhleeyeen nebiye markii dambe noqdeen أنبياء بدن نبي سليمان نبي هود معها سليمان أبيه داود نبي الله موسى أنبياء بدن الرهر بن إسرائيل ودت صالحين القرآن كورمية بل إلهي وحكوت المامية إن يكمد وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون رهر بن إسرائيل وحكم إذا أئمة ضد لقد ضيده ودين إلهي كل جي markii ay ku sabreen inay waxooda xajistaan yaqiintooduna ay rasmi ahayd yani laba midna ma gelin waxan ay diinta haysteenna way rumaysanaayeen way yaqiinsanaayeen second to that obstacleski ka hor yimid dhibaatadii ka hortimina umay dabcin labada shay markay isla heleen baa ilaahay leeyahay ay waxay u noqdeen bini aadamka tusaale kuwaas reer banu Israa'iil bay kamid ahay waxa kale ilaahay quraanka inooga warramaya group kale inuu reer banu Israa'iil kamid yahay bal groupka kale aan eegna waxa ilaahay ku sifeeyay
marka hore ilaahay wuxuu yidhi waqatacnaahum fi lardi umama reer banu israa'iil waa googoynay baa ilaahay yidhi dhulkaa lagu faafiyey minhum asaalixuuna wa minhum duuna dalik kuwa suuban iyo kuwa xunba way lahaayeen baa ilaahay leeyahy وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون dhibaatooyin iyo wanaagba waa ku itixaamnay bal inay soo noqdaan ilaahay wuxuu sheegay markaa kuwii kaga dambeeyey waa kuwii lumay فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون إلهي وحده كوا قداشد وحمري قلدا محاوى على مدى مركو هره كتابك way dhaxleen dadkii challengeska soo maray adkaa maaha waa dad dhaxlay waa sideenoo kale inagu islaamnimana umaynan dhiman cidna meel kamaynan xoraysan inagoo dhul muslim degan oo dad muslimiina la nool baynu islaamnimada dhaxalay waliba abiyo hooyadii buu ka dhaxlay bulshadii uu la joogay buu ka dhaxlay way dhaxleen kuwan ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay yihiin warithu hada alkitab asalkana waxa la yaqaan qofka bini aadamka ah wuxuu dhididkiisa iyo dheecaankiisa ku bixiyo uu uga laxa jecel badan yahay waxa si fudud soo gala hatta dhaqaalaha caadiga ah waxaad adigu ku dhididay si fudud kuma baxaan laakiin xoolaha aabaha ka dhaxashay inta badan sayr-sayriska dhalinyarada wixii ay aabahood ka dhaxleen inta badan waa lagu tuntaa waa la baabi'iyaa laakiin waxaad adigu dhididkaaga ku keentay waxaa laga yaabaa inaad yamxeeriso ilaaliso oo ku xisaabtantid inaanu hore kaga bixin ilaahay kuwan wuxuu yidhi warithuu hada alkitaab way dhaxleen baa la yidhi dhaxal bay kitaabka ku heleen maxaa caada waa markaa ya'khuduuna carada hada aladnaa wayaquuluuna sayukfaru lana wain yaatihim caradun mithlu ya'khuduu waa iska dambaabayaan waxay doonaan bay samaynayaan marka la dhawr wasideen waxay odhan insha allah ilaahay baa noo dembi dhaafi dabcan ilaahay dembiga ugu dhaafaa laakiin haddana hadday mashkiladu timaadaba ilaahay leeyahay mar kale waa iska qaadanayaan marka amalka war ilaahay baa ghafuurur raxiim ilaahay baa inoo dhaafiyo iska walaaqda ayay ku wadaan waa maxay ka soo horbaxay islaamnimo waa khilaafayaan waxaanay nafta ugu sheekaynayaan ilaahay waa ghafuurur raxiim ilaahay baa inoo dhaafi laakiin maaha ghafuurur raxiimnimo intuu rumeeyey wixii ka joogsaday oo leeyay ilaahay wixii hore hayga dhaafay markaan wadada saxaya wain yaatihim caradun mithlu ya'khuduuh baa ilaahay yidhi tii ku labaadoo la mid a hadday soo martana halkii bay ka wadayaan waa qaadanayaan baa ilaahay yidhi ilaahay markaa wuxuu yidhi war kuwan miyaan ballan ilaahay ka qaadin inay de xaqa ku sugnaadaan oo diintan ku sugmaan oo aakhira inay dambayso ogaadaan qola waa nooca qola kalena ilaahay wuxuu yidhi waaladiina yumassikuuna bilkitaabi wa aqaamuu asalaata inaa laa nudiicu ajra almuslixiin waaladiina yumassikuun kuwa kitaabka qabqabsanaya baa ilaahay yidhi masaka oo bitadciifa luqa alcarabiya yani waxa weeyaan markaad qabqabato waa qof aan rabin waxaan inuu ka baxsado waxaa laga yaabaa dumar quran qabto ay ka siibato qofka caadiga inuu iska laakiin kani waa qof raba maxay inuu xejisto kuwa xejisanaya baa ilaahay yidhi kitaabkan ee salaada oogaya kuwana ajirkooda dayici maaya ilaahay yidhi idan waa laba miduun inaynu dhahno insha allah sayukfaru lana waa caruurta waa iska hagaagi doontaa diinku waa arrimaha diinta oo dhamme ay noqdaan insha allahu inaynu sayukfaru lana ku dhisno ku binayno على هذا المذهب قادنه يينو قادنا مذهب التمسك بالكتاب إنه نحكي سنه جيل كهر الصحابة دو سيداي وقبحين صور يركوبا بما كسيني أفرتي سورة دو قرآن كوجه الرئيس ودقة ولما دو حسكوا أفقسيهين أفر سورة دو قيبا وجه الرئيين قرآن كوسه هردقين waa laga yaabaa riwaayaadka oo isdhaafdhaafinaya afartan isay u kala horreeyeen inaad aragto laakiin afartaasi inay yihiin afartii ugu horreeyey ayaa badiba culamadu tilmaamaan waa suuratul calaq inta ugu horreysa اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم آياتك ugu horreeya waa suuratu mudathir آياتك ugu horreeya
يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وسورة المزمل آيات كوكو الرية يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا آيات كوكو حية. هي سورة القلم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. علماء يدهدان waxyigii koowaad ee nabi maxamed ku bilaabmay wuxuu ahaa waxyi aan si fudud loogu sheegin si xooggan loogu sheegay. yani dhowr jeer buu jibriil halkan qabto intuu nafta isugu keenay nabiga uu yiri iqra oo nabigu lahaa ma ana bigaari hatta markay naftu ku dhigaadho sii daayo leeyahay iqra. hay culimadu yiraahdaan al-aslu fi at-ta'lim wa in si fudud la isugu sheego laakiin hadhihi al-mas'ala waxa la rabay ilay fi qimmati al-intibah wa as-sahwa in arrinka soo socda wax fudud inaanu ahayn in la soo jeediyo. afarta shay maxay sheegayaan ugu horeeya aayaadkani ka waramayaan. laba suuradood mas'alada ilmi bay ka waramayaan. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم النون والقلم وما يسطرون. هاي علماء يدهدان وحي مسألة تلمامسة بالجهل إن دين لغو حجين كارين يدو جاهل ليي إن وحبا لحجين كارين أصل كدين تونا إن كوسا ليسان تاي عرب أختي جدي وحا لغا يابا أقوان دادك وقدام بيين أيهي باهيها قبتيا كلا وحا لغا يابا هدي أدقى الغوران لها محال لغو يصلحين لها عدالة هلا الرادية كان الرادية وحبا روكا لنا تلمام لهي. لكن مسألة التوحيد والعلم بين هذا وهذا سعتي أصل كوحي مركا أقوم إلهي إلا برطه رسوشي سلا برطه آخر اللي أقاده علمي بان لغو حيشين كرا وشيء كوادي لغا فهمي بين هذا شيء قال لبادي لغا فهمي آيات كاني وحويان بيليين قفك بني آدمكي أما إساقا الدعوة وضح أما إساقا الدعوة الله وضح أما أدا لغو رادين إياه أدا سيمي الميوسي سعودة مالين بين مقوران إياه أما أدا وحرادين إياه جروب كاقا يسكو ديانا تبيرسو هل كاقا ينات كدقاقين ينات عد صو بيرسو أدا يسكو ديانا سوقت باهي لهي وحكو بالهبي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر كان استودوبا يوبا ليلي كعودين شيك ربي قانا وينيه وثيابك فطهر نفطادا يا قلبي قاقا يا مرضادا يا وحاقوردن طاهر يال والرجس فهجر حمهنا كهجرود ولا تمنن تستكثر وحاد ودنا إلهي درتي أوت حولا يكون رادين هذا كبت صنيها صبيني ولربك فاصبر جدك هداد قادنا مشاكل بعد لكل مساية صبر وقت كيسال لي يعني وحلقوا بلابا نبي محمد هدينو دانا عليه الصلاة والسلام وابا آيات كي لبادي كسود دقي سيدا علماء بدن قبطو علمي جي وجه الريين طول لك وإقرأ يوحق الريوينا علمين تسوهي هدنا يدو علمه انت كوكوبيا وحلا يري محي مبدأ عفافي مبدأ بلو إذا waxay yiraahdaan khayru difaac si laysu difaaco waxa ugu fiican bay yiraahdaan adigu weerar gasho in adiga marka lagu arko la yiraahdo waa kii wadaadkeen mudin sheeg xagee inoo gado adigu inaad tahay qofka wax raadeynaya isku dayay dadka inuu raadeeyo laakiin insaanku dhibta tirada badan la uma adkaysto ilaa inuu ilaahay xidhiidh dhab ah la leeyahay mooyaane. سوغيت با وحا يري يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا واذكر اسم ربك بكرة أوكي إلهي وحولي كان استوضوبا يو كيسدد يوبا ليري كعو إلهي ستاك markaad dhibi ku qabsato nolosha caadiga haddii adigu aad iska qaadi kari weydo maxaad samaysaa
normal كبني آدم كاللغو يقانو حويان إنه فكروا أصحابتي سي عدي وحديد كلا هوا ما أنت يا مشكلة دنيا يا كعاون كنا مثلا problem دقالك وقدعي marka koowaad aad mushkilada xalil kare waxa sooraysa bartaloyad wax ka soo amaata ama wax ku siiya marka maskaxdaada markaaba waxa ku soo degdegaya mararkii xidhiidkii nuu fiicnay ama hanti haystay ama wax ku dhaamay ama caynkana tiraado warbal waxa ama hema inaad wax ka weydiin inaad wax ka heshaba suurtagal qofka muslimka ee dhabta ah markay dhibi ka hor timaado xalka koowaad ee uu raadiya waxa weeyaan rabbus samaawaati wal ardi inuu xidhiid la sameeyo man biyadihi malakuutu kulli shay إله قعنتي سوح ولي بكو جيران الباب كي سينو قراعه ساوغيد بان نبي محمد بركي دبتو كهرت بإلهي وحولي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا كانس دادا يو كانس طودوبا يو كع هبينكي انتي سبضاني يرمو يعني نسكي أما وحير كي يريبا ليل حلقو علي إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا بإلهي ورعلص بالغودي بيه دعوذني الدين كان يا قرآن كان يا سيستم كان ينتقاضى أعرف فضود ما هبا إلهي لي ورعلص بالغوسين يا لكن وركن علص وحقو فضوينا يا وامحي حديد كاد إلهي لا كلما حديد كانوا رب لا لأنه ضعيفه اسبدل كانوا لشي إني حق حمي ودقدقية markasta uu xoogaysto xidhiidhkaad ilaahay la leedahayna xejisadad xejisanaysa diinkaaga iyo waxaagu wuu xoogoobaya idan aayaadkan markaan isku soo daro anigoo raba inaan ra'yi guudun ka tilmaamo koobo waxa weeyaan in wax la barto oo diintaada can cilmin aad ku sugnaato waayo shubahaadka kama jawaabi kartid ama ma ka noolaan kartid cilmi mooyaane shubhada daliil baa kaa riixi kara هذا الدليل هيسنين واتشبيسا إذن علمين يهي لابد شهوات كنا حديد كاد إلهي لا دي بدني دي سريحة إن دي إلهي حديد بدن لا يالط فافنت الدين تنا environment بيكو أبو ريسات كل إحنا ولا كرتيد إن الدين تفافي سيد ومركاسي أتفافي سيد صحابة دي النبي مركا مسائل كاكو أتكايستين noloshu umay fududayn nolol adag bay la kulmeen qaar la torture gareeyo qaar la dilo qaar torture-ka ku dhinta isagoo nabi maxamed arkaya calayhi salaatu wasalaam qaar torture lagu dilo saxaabadiisa ka mid ah qaar sidii loo torture gareynayay iyagoo tii u dambaysay laga sii daayo nooc walba way yeesheen haddana ilaahay wuxuu leeyahay min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu allaha calayh faminhum man qadaa naxbah ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا بإلهي مؤمنين توحى كمد الرج كرن شيء وحي إلهي وبلن قادين شو قضية الصدق إذا كلمات دين كرن شيء وحي محي بلنا إلهي لقالين فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر بلده وحكم ده قار سدا كل طي يقول شتكي كتاجن يقار سجية وضدا سنة هيا إلهي مركو صحابة تلمامي وحلقو تلمامي رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار والرقبة إلهي لي كواسي أنا مشغولين تجارة يا بيع يا وحقدست يا بيع مش لعق حوكسيو أما الدنيا حوكسيو أنا كم مشغولين عن ذكر الله إلهي حسكيس وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صلاة دوغستيدا مرر بدن waxay dhahdaa su'aalaha soo noqnoqda had iyo goor waxa kamida salaada iyo shaqada sheekh de shaqadii maxaan sameeyaa salaadii baa waayo shaqada xaqeena muhiima laakiin tan kala agteena taqiilka loo raaday shaqada qiil loo raadin meesidiyada shaqada waa shaqo waxa u baahan qiil loo raadiyaa waa maxay waa salaadii iyo loo tukanay إلهينا وحطت الماما يا قلادة تموحى لقسي فينا يهين رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وايو يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ما لم بيكعب سنة يعني dad shaqada in laga eeriyo dhaqaale darradka yar cabsanaysa laakiin qoladani waxay ka cabsanayaan maalin qalbiyada iyo garaadka iyo indhiga iyo wuxuba gelgelmaan
cabsida maalinta ka haysa daraaddeed mar kasta iyaga waxa priority-ga u leh number 1 ah cibaadadoodii iyo kuwa kan ka waxaan leenahay kow ahlu kitaabkii hore hadday gurbada waxay kaga baxeen baynu kaga bixi karnaa lama sabaru wa kaanuu biaayatina yuqinuun waladiina yumassikuuna bilkitaab kitaabka kuwii qabsanayay waxaynu kaga bixi karnaa baynu leenahay wixii saxaabadii nebi maxamed kaga baxday calayhi salaatu wasalaam iyo rasuulullaahi muxamed iyo qur-aankii koowaad ee nebiga ku soo degay siduu u tawjiihiyey xaguu u diray waxaan kaga bixi karnaa baynu leenahay marka aynu garanno waxaynu haysanaa waxa inaga maqan inuu ka qiimo badan yihi alictizaaz biddiin yani ma waxaan raadinayaa qiimo badan mise waxaan haystaa qiimo bini aadamku markuu wax iibsanayo ama wax gadanayo waxaad wax ku raadisaa maxay dee waxa qiimaha badan le inuu xaggaaga soo maro shay taafiha ma iibsatid waxaan qiimo ku joogeen ama waxa kan ma rabtid nolosha ma diinkaa qiimo badan oo aynu ilaalinaa mise waxyaabaha kale ilaahay waxayna baraya inaynu diinteenna muctasiin kuwa ku faano oo xejista maaha kuwa xejiyo qura xejinta waxaa laga yaabaa inaad tiraahdo ilaali laakiin haddaynu salaadii qabanno waa salaada iska tuko laakiin dee bal meelaha aan lagu arkayn iyo su-aalu waa musqusha ma lagu tukan karaa iyo meelaha ma lagu tukan karaa iyo gaadhiga adigoo wada kursigaba iskaga tukan kartaa iyo meelahaasay su-aaluhu badan yihiin laakiin alictizaazu bidiin uu ka gedisan yihi diinta hadda inaad muctas ku tahay saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniina walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun war cize iyo sharaf waxa le baa ilaahay leeyahy alla iyo rasuulkiisa iyo inta raacday munaafiqu se ma fahamsana taasi maxay keensanaysaa saxaabadii diinta haysay bidhbidhka noloshu ma niyad jabinin مثلا dagaaladii ugu waaweynaaye saxaabadu gashay waxaa ka mid ah xarb alqaadisiya ciraaq meeshan la yidhaahday ku taallaa ciraaq waxaa inteeda badan haystay persia dowladdii iiraan baa ka talin jirtay dee caasimadoodii madaa'in waa baqdaad dhinaceedaba kama fogaa maadaama ay ka talin jireen markii muslimiinta iyo nimankaas iiraanta ee majuusiyiinta dagaaladu dhex marayeen dagaaladii ugu waaweynaa waxaa ka mid ah dagaalka qaadisiya 200 kun oo gaala iyo 30 kun oo saxaaba ah is hortaagan iyo intii la socotay saxaabada waxaa hogaaminaya 10 المبشرين ka mid ah Sa'd ibn Abi Waqqas baa ciidanka wata qolada kalena waxaa hogaaminaya nin Rustam la yiraahdo jananadoodii waaweynaa laga dambeeyay ka mid ah marka Rustam wuxuu rabaa bal nimankani mentally siday u fakarayaan inuu ogaado wuxuu Sa'd weydiistay inuu u soo diro cid wada hadal bal u dhex maro nin baa loo diray uu soo celiyay mid kale bal ii soo dir waa loo diray saddex nin baa kolba mid u tagay saddex saxaabi ayaa kolba mid u tagay مثلا mid ka mid hadaynu soo qaadno Ribci ibn Aamir baa ka mid ah ninkani wuxuu rabay inuu hanjabiyo saxaabada tan oo uu tilmaamo waxaan soo saaray gaaja iyo dhaqaale doon haday tahay inaan dhaqaale bixiyo marka sariirtii boqortooyada meel la dhigay dabeetana red carpetiska ayaa la waday dhulaadu ballaaran ninkan muslimiinta ka socda fars yaroo gaaban buu wataa waan intaas oo bilood dagaal ku soo jiray deenin ay ka muuqato adduun iyo dhaldhalaalkii maaha Rabi ibn Amr oo fars yaroo gaaban wataa soo baxay dabeetana markuu soo gaadhay meeshoodii buu iska soo dul eriyay faraskiisii kama degine waxay culimada taariikh sheegaan barkimooyinkii meesha teedsanaa mid ka mid uu faraska ku xidhay dabeetana uu ka soo dhaadhaco xaq uu soo dhaca waxay yiraahdeen boqorka saan looguma tago hubka dhig boqorka adoo hubsita looma tago wuxuu ku yidhi boqorku isaga ii yeedhay anigu umaan rabine haddaan rabtaana sidaydan baan ugu tegayaa haddaydan rabinna waa iska noqonaya boqorkii waa loo sheego waxaa la yidhi Rustam ninkii wuxuu leeyahay anigu idinkaa ii yeedhay ama maca hubkaygaan gelaya ama waa iska noqonaya soo daaya buu ku yidhi maca hubkiisa soo daaya isagoo wixiisii situu soo galay su-aal baa la weydiiyey markaa maa jaa bikum war maxaa idin keenay abaar iyo gaajo iyo dhib iyo balaaya ka soo maxaa idin keenay saxaari uga timaadeen wuxuu ugu jawaabay الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن ضيق الدنيا إلى سعتها
ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام إلهي بأن سوابحيي إن نكسر ردتك عدي ودونه الضوما هيس الضون سنة يانو إلهي الضوما ودقنو وحنوصع عن أبو لين البنادم كحرينه مخلوق خلينا والضون سن إلهي يقول إن يدتكو الضوما ونقضان ودتكو حرية هلان فحنوصع عن أبو لي عبادة إلهي قاركو نقط waxaanu kala u soconnaa buu yidhi inaanu dadka dunida cidhiidhigeeda ka saaro ballaceeda u saaro haddaba ninkan kaarbatyada cascas dhigtay carshiga weyn ku fadhiya ayuu wuxuu ku leeyahay cidhiidhigaa kaa saaraya cidhiidhigu waa qalbiga kan adduunku qiimo ulama fadhiyo weyn kaarbatyadan iyo waxaan ninkan ku fadhiyaa wax weyn oo qiimo uma samaynayso waxaa kala fiican عدالة مارتاي توحيد كيسية دين تيسية وحاستا كلا فيه marka wuxuu leeyahay adduunka waa dhibad ku qabtaaye cidhiidhigana duuman ka bixinaya waxaan ku saaraya maxay balaca adduunkan ku geynaya buu leeyahay waxaan kala u socdaa buu yiri diimaha dulmigooda inaan ka kaxayno islaamka cadaaladiisa ku saaro yani mowqif kale wuxuu sawiraya ninka kani walow meeshan ninka xoolo badan oo ka بدبرك الدنيا كغفي عن وتاغن إنه معتز بالدين يهي دين تيسا wax u dhiganta inaanu jirin inuu rumaysan yahay taas waxay keensanaysaa qofkan diintiisa ilaashado ilaahay wuxuu leeyahay hatta hadii sida kale dhan leedin ka xog bato wala tahinu wala tahzanu wa antum al'auna in kuntum mu'minin war hal liidanina baa leeyahay murugoonina idinka koreeya hadii iimaanu jiro dad rumaysan tahay rabbiga ay ku xidhan tahay adaa koreeya salawaad adaynu tilmaamno oo saxaabadan reer Maka ah ee Nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam rabbiga say u muuqdeena en markii Bayt al-Maqdis muslimiintu ay furteen Bayt al-Maqdis ninka furanayay ciidankaasna ninka loo 10 al-mubashirin hogaaminayay Ubaydah ibn al-Jarrah ayaa ciidamada watay dabeetana qoladii masiixiyiinta meesha joogtay waxay yiraahdeen sharti ah furaha sulx baanu galeynaa saasaanu kula heshiinaynaa laakiin furaha wuxun baanu u dhiibaynaa amiirul mu'miniinkiinu ha yimaado isagaanu fura ku wareejinaynaa sidii buu ku soo baxay Abu Ubayda Umar buu la hadlay wuxuu yidhi nimankii saasay yidhaahdeen dee haddaad noo iman karaysa kaale Umar wuu soo baxay وعرب فريه بيت المقدس إنه لو ريجو ماشنا يسقى فراه لو ديبو معاهدة دي لقالينا سداسي أيكو هركش وساس عليه مركو ماشي يروسو شري أيو حصامر يدل دير يرب هلا يرب مدنا دبتنا دابدي وفوشنين تعمر كده دقي والله بدي كبودنا الله بحي أيو الله بدي كبودنا هلكم كسوقات نيف كيسينا سوه جامي الله بدي ناس كسر حصادي أبا عبيدة يا عيد مدي مسلمين ترقي سود ويني يا كهريمو أبا عبيدة وحولي عمرو ما تشعلن ما يصرني أن أهل البلد استشرفوك حديثك حاكم ورينيو إن مقالة دتك دي مدح دينا يكو أركان سيدان أدقو نكن فايداني عقار دوبا كلها إن لغو أركو ما نشعلي بولي عمر أريقي ودي بصدق أديك عيدنا أوه لو يقول هذا غيرك بيري أبا عبيدة وحن شعلان الله ميدان أديك هينو نيدا أبا عبيدة أديك وكاحشوني أقول لي لكن وان عقابي لها أنك لو أنا أديك هيني إنو ياي مركا وكحو ما يقولي لو غيرك قالها ميدان أديك هين موركا سكا صوبح بولي دبتنا عمر روحو ديبو قول نقضي تاريخ دودي أبا عبيدة بوا أوجي لكن وحو يرربون isagoo amiirul muuminiin ku muuqda amiirul muuminiin xagga dharka iyo haybada inuu meesha yimaado laakiin Umar wuxuu ku leeyahay waxaanu ahayn inna kunna adalla qawmin dad aad u dulaysan baanu ahayn ilaahay diintan buu nagu ciiseeyo dad naga dhigay buu leeyahay markaanu carab ahayna dhulkaygii joognay dad dulaysan baanu ahaan jirnay laakiin ilaahay wuxuu nagu ciiseeyo nagu sharfay diinta tan haddaanu ka raadina buu leeyahay sharafta meelaan diintayada ahayn ilaahay waa naduleynaya ilaahay diin buu nagu sharfaye waxaan diin ahayn haddaanu sharaf ka raadina waa duloobayna waxaynu uga dan leenahay qofku muctaz bidiinihi inuu rumaysnaado in wax ka maqan yihiin inaanu ogeyn bidhbidhkan adduunya inaanu qiimo badan ku lahayn taasi waxay keensanaysaa
إنه الدين تيسي حوق وحجستو إلهي سوى النبي محمد الله الله عليه الصلاة والسلام ومن ورائه صحابة الله الله وحليله فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون إلهي وحوله حجسو فاستمسك بالذي أوحي إليك وحي لغوسو وحي يدي حجسو وايو جد صحبات كسوغانت إبا إلهي لي جد قمان بات كتاغانت وإنه لذكر لك ولقومك قرآن كاسي وحي غاية دين تالغوسو دجينا شرف بوكوية هاي أديك يطلق بابا إلهي لي إلهي نويدين ويدين دونا marka wixii ugu qaalisanaa inaynan siisanin maxay wax liita man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a alladhina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min duni al-mu'minin ayabtaghuna 'indahum al-'izza fa inna al-'izzata lillahi jami'a waxalana shayga koowaad waxaweyaan inaynu qurbadan kaga baxno wixii ahlu kitaabkii hore ilaahay ku tilmaamay inay kaga baxayeen inuu kaga baxno wixii saxaabadii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam kaga baxday inaynu muctaz ku ahaano dad ku faanaya oo aan qarsanaynin diinta tar inaynu naqaano wixii inala kulmo markaynu waxaan sheegayna macnaheedu ma aha nolosha oo dhan ba iska fududaanayso gaal ku dhibi maayo nolosha wax maya system dhan oo dhisan oo waxaan ka soo horjeedaynu u nimi لابد من تضحية ولابد إن عليسكا هورمانيو تشالنج سيجران ودي بيجرتو لكن وما حي تحديات كاين جيسينيمو يصبر لقال هرتو جيسينيمو دو قوب دقالو قرام ما هي جيسينيمو دا أدبي قابا كرون كلمة الحق إناد مركز تكون دواغ كرتو وحاجة إناد موجسان كرتو إناد كل رنت هاي مبادئ دا إناد حجسان كرتو ولذلك بقى إلهي غير بنو إسرائيل كي هقاقي وحولي وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وركوا إيمانك لقاها ليو بقى إلهي لصبرا والله الصبر لك تبال لي مشاكل كوكو بدن دونايو وبني آدم وحن كالو إذن كهر إيمانا ياي إذن كصبر بدن نبا إلهي لي ورابطوا في ثغوركم قوابها أتكو جرتان إنه فيسيدين نحي جسته إلهينا كعب صدا وقوليسان دون تنبا إلهي إليه سبحانه وتعالى انت كدب حينو باهرنا هاي نوع من الحكمة نوع من الحنكة نوع من اللباقة نوع من الرفق يدوم مبادئ كو حكي سنينو هدنا انت اينو سفضد وحوضي كرنين انو وضنو marka qofka la yiraahdo diintaada xijisa dadka barba u fahmaan cunfi iyo dagaal iyo qalafsani iyo insida maqiiq meel kasta kala hortag sidaasna ma sax maaha waxaagay hayso xijiso laakiin de martaatay usulubna u noolow yu'ti al-hikmata man yasha wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran kathira wa ma yadhakkaru illa ulul albab Aisha ayaa waxay sheegaysaa xadiiska sheekhaynku warinayaan ولا نبي قوت مي يقعد ده كوتشيس تيس يو عاية ناس واحد كوي لادن السلام عليكم السلام لام كلا جبودية لكن وحلا سكر جاي يدي ليري السلام عليكم السلام عليكم وجري كركا جهات وأخبار السلام عليكم نوا ربها كحفدية لما تقولي وانا كركا جهات السلام عليكم نوا موت يجري بلايو كركا جهات دبتنا عايشة أنت عروتي مركبة واحد تري بل وعليكم السلام واللعمة إذنك عرض على يجري سينا عدش وكركي إن إذنك ها طبيعي تري نبي عليه الصلاة والسلام إسقى كون مغلى وحي يراهدين عايشة مغلى واحد تري أيوة عايشة هذا تلصينا يا وحلا يا عايشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله عاشاي إلى هو الرفيق وكوسي دبع سن تتكون مريه يحب الرفق في وحول البنان دمرسان لو سمايو اي الله جعليه سبحانه وتعالى عايشه وحي مود
nebigu inaanu maqlin malaa dhimirtani waa warkii baanu maqline awalam tasmac ma qaal waxay ku hadlayeen miyaad maqal ilaahay rasuulkiisiyo qad qultu wacalaykum buu nebigu yidhi waa maqlay yani wacalaykum baana dhow soo gaabi waxaan uga dan leenahay xadiidka riwaayadda imaamu muslim waxay tilmaamaysaa in allaha tacaala rafiiqun yuxibu alrifqa ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه رواية كلام إمام مسلم ورينا الرجينا يدنا وحي شيء عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه حنو قد لنا يوم عقيدة دينية مبادئ دينية أخلاق دينية دقن كينا دمان تودان حج سنو تام معنى هيدنا لقى ما فهم أيوه عنفي يو المشاكل كلام أبور لقى ما فهم أيوه وحا لقى فهم أيوه إنه عقيدة إسلامية يدقن كإسلامية ينقضوا الموضوع قضية كلام تلمامية وحويا وإنه كلا قرنا محان قادنا محان كتجينا وين كلا قرنا مينو ميد مينا وينو بابا إن ذوبان مسي اندماج هل كان مركز شوكتان ريال الله يدين شرح الله يدعم حي assimilation iyo integration dadka baad bay yiraahdaan geed toobay galaan qaarna way assimilate gareeyaan qaarna waa u dhaxeeyaan oo waxay galaan maxay integration geedtoog waa intaad meel isku qafilso xira yareeda wax walba may tiraahdo taade adigu bay ka suurtagal tahay yararkaaga iyo islaamaaga waxa kan kama suurtagalaha in dad meel isku qafili kareysana kaagi baa ku roonaa inaad isku qafisho waanad xaggan u soo bixin ku darsan kuna dee waa adoo dhintay oo iska milanku waxaa soo hadhay waxay iyaguna inagu wacdiyaan inanaan u baahnay inaynu fahamno la yidhahda integration meel walba waxaa la leeyahay integration politicianskii nimanka siyaasiyiintii bulsho kastoo homogeneous way ka fududay bulshada kala gedisan tacadudku iyo noocyaadka kala gedisan waxyaabaha qaarkood way ku fiican yihiin bay dhahaan laakiin siyaasiga uma fiicna siyaasigu wuxuu jecel yahay dad isu aragti oo isku dhan u jeedo dad dhan qura wada kaxeeyo laakiin dad geesale waa ku yara dhib badan tahay marka iyagu integrationka ay sheegaan inta badan saas u badan yihiin laakiin adigu inaad integrateto waa sax laakiin laba weerood waa inaanu kala garanaa ما الفرق بين التبعية والاستفادة بين التقليد والعلم حول حياة إنه دميردان راعي نقولنا كودا إنه أو حول بكاء قاعدنا يعني وحكى فائدنا أقولنا ككرسنا وحوين بقول حياة وحي وحنفعية يعني دين هذا كهري ما نين إنه كقاعدنا ويا لكن مسائل كعقائد هي الدين هي أخلاقيات كني عبادات كني وحين إنه كتنازل معها إنه كتنازل معها بكوين إنه كلا جرنا نبي عليه الصلاة والسلام وحط المامية إن يدعي دونته لا تتبعون سننا أو سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وحراعي دون تنبو نبي يقولي ودوين كده كيدين كهري تاكا يردون صحابتي دمنتك هيدا وحسك صور عيسى دولك حريصة يا عين كان أبو وركا كلي مركز النبي وحولي ولبا حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموه أو لدخلتموه حتى هدي قد مسلوا علي قد مسع علي هدي قلان وكذا بقى لي يسمون النبي مركز واحد يا رسول الله اليهود والنصارى ما يهودي النصارى قال فمن يا كلام النبي يا كلا مالك قالوا هدنا النبي وحو يري حديث كانوا كلا سورنا من قبلكم بالراعي دونتان مركز واحد الروم والفرس ما رومانسك يو بيرشيانكا يا كلام النبي يري ابن حجر رحمة الله عليه مركو لبدا حديث بفسيري وحو ليه وحي سياسة دولية يباب كاكو صاب سنة وضد الرومانسك يو بيرشيانكا أيا راعي دونتان هذا نقطة بدعة يدين أبورك هي وحنك هلنا وحراعي سان محي اليهود والنصارى إذن أصلكم حديث كان ينوت المامية وحنوت المامية قفك مسلم كاي وحو كغسو عيي إنو قرطو يهودية نصارى محو كغسو عيي رومانسي بيرشين محو كغسو عيي مبادئ عقائد الدين بات كغسو عن تاي محاودة ليدين
tajaarib al-insaaniya wixii ka tirsan bini aadamku wixii experience-ku ku dhaxlay aqoontan la sheegayo dhaminteeda badani waa maxay waa tajaaribtii bini aadamku uu kala dhaxlay idan waxaynu qaadanayno iyo waxaynu ka tagayna inaynu garanno ilaahay markuu quraan ka warramayo anbiya ilaahay ka warramay fi suurati maryam baan rajaynaya anbiya ilaahay ka warramay nabi hebel marka anbiyada alla ka warramay ayaa ilaahay isku soo duuduuba wuxuu yidhi ulaa'ika aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina min duriyati aadama wa miman xamalna maca nuux ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا كواسب إلهي وكوي إلهي النعمي ذرية نبي آدم يكوي نبي نوح يو نبي إبراهيم يا نبي إسرائيل وحي دلان أنت أنو هنون نبي إلهي لي إلهي آياتك سبرك مقلان وأخضوا عنه وسجودا لكن جروب كان نبي هذا كبحسن ما إلهي طلبا بهذا فخلف من بعدهم خلف جروب بقوا ضبا مريبا إلى هيري ووضدوا دي كواعدهم حي سمايه أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلغون غيا صلاة يضيعين شهوات نفسي وحي الربطة يسكر راعين كواس النار تقليا مالوت الماما محان وقدون لنا مركا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا وحنو دان لنا لنا حي وإنaynu garannaa waxaynu haysanayno وإنaynu garannaa tajaaribtii hore ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa duul wixii la rabay inay ka tagaan mooye wixii la rabay inay xijistaan ka dhacay oo maxaa ka mid ah مثلا ilaahay wuxuu tilmaamayaa watlu calayhim naba alladii aataynahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu الشayطaanu fakana min alghaawiin waxaad dadka ku akhridaa baa ilaahay yidhi warkii kii aanu aayaadka siinay mid diin garanayuu ahaa maxaa ku dhacay fansalakh waa ka siibmay baa ilaahay yidhi dabeetana shaydaan iyo gruubkaasuu ku biiray kaa ilaahay markuu tilmaamay waxaa la yidhi famathaluhu ilaahay wuxuu markuu soo tilmaamay haddii ilaahay doonayo qofkani qof sugan buu noqon lahaa waa kaa la soo sheegay waxaa la yidhi famathaluhu kamathali lkalbi in taxmil calayhi yalhath aw tatruku يلهث كاتو ساليسو ايغو بو لميدي با ليدي ايغا هدي لا اريانا عربك والله لاديا هدو اسك فديانا عربك والله لاديا خولا كله سدا ماها خولا كله markay kulayl iyo waxa dareemaan bay harariyoodaan markay seen nabad qabaan de ma harariyoodaan eeygu laakiin markastaba isagoo carab laala kan waxa weeyaan haday diin loo sheegay hadan loo sheegay waa isku mid ilaa marka horeba diin buu hayo uu ka baxay waa kitaab xor dee wadaad qori kitaab xor ma aha hadaynu wadada wada cararo dadku waa wada kitaab xor buu noqonayaa ninba intuu hayuun buu xorayahay nin salaad xora iyo nin inka durugsan xoraba ninba intuu hayuu xoraya waxa kaloo ilaahay quraanka inoogu sheegaya shaytaanku qura ma aha dad mutarabbisiinana inay wadada fadhiyaan dad ugaadhsi taga oo jecel inay naga saaraan ilaahay wuxuu leeyahay wadda kathiirun min ahli alkitaabi لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق إن بدنوا أهل الكتاب كمدي وحي تشعلي باي لهيدين الدين تاني دين كبحيان إيمان كدبدين قال لما يدين عليان ولبا يقو حق وعد يهي مري وحقرتين حاسد نما درادد باي لهيدي دي كواسنا ينوى جوغان مركا وحويان وضعي يو أدك شيطانو ميشا جوغا qolo kale ku ugaarsanayso meesha joogta iyo adigoo labaclabacla hadday heshaan dee arko waa khatar marka waa inaynu kala garanaa maxaynu kororsanayna maxaynu aan dib ugu soo noqdo markaas waxaan ka bilaabayaa halkan waynu nimiyo su'aasha ah si fiican qof waliba uga jawaabo ma waxaagii adigoo haysta inaad wax ku kororsataa baad rabtay mise inaad waxaagii wax ku bedelato ninkii rabay wixiisii inuu wax ku kororsadaa waxaad haysata diin baa ugu weyneed diintii waa inaad xajisaa markaasaynu ka wada hadlaynaa adduun iyo wixii aynu kororsanayna taa haddii la waayo waa waxaygii baan wax ku bedelanayaa adna caydhiya shaqaa lagu siin ee diintii iyo carruurtana waa lagaala tegi adna caydhiya shaqaa lagu siin oo nabadgelyo iyo waxaad ku noolaatay oo kan laakiin nabaddu waa maxay
nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu inoo tilmaamayey haddii afkaartaad rumaysantay iyo bulshadu waxay rumaysayiin markay iswaafaqaan in nabad helayso wuxuu nabigu yidhi man asbaxa minkum aaminan fii sirbi mucaafan fii jasadi cindahu quutu yowmi fakaannamaa xiizat lahu dunya bixadafiiriha ninka waa bariista isagoo nabad qaba fii sirbi ay fii qowmi aw fii mujtamaci aw fii ahli gurigiisi iyo reerkiisi iyo dadkiisi kuwaa bariista yacni bulshadii ay isku waxa aaminsanaayeen ninka kuwaa bariista isagoo nabad qaba kaasoo ah mucaafan fii jasadi jidh ahaanna caafimaad qaba cindahu quutu yowmi maantaa wuxuu afka geliyana haysta kaa adduunkuba wuu ku dhan yahay buu nabigu tilmaamaya يعني كاسي وحا يستا ألمن نفسي ولمن العقد ولمن الفكر ولمن الصحي ولا وحي الشيغان ردنا يكور رمان أياكو صوروري لكن إنك وابرستا في غير السرب جروب كي سعيد أنا إنك وابرستا مبادئ أفكاري عقائد كلا قد سنة لإسكال هوري مادو كاسي مال خطر وجوغا مركز سؤال شو محيطاي haddaad rabtaan inaad waxaa haysateen wax ku bedelataanna dee waa mas'ala haddaad rabtaan wixii aad haysateen inaad haysataanoo wax kororsataanna waxaa haysateen sidaa u haysan lahaydeen caqligeeda wayna keentaan oo kow waa midnimo inay isku xidhantiin laba waa juhdi iyo dhaqaale iyo xoog iyo waqti dheeraada Soomaaliya markaad joogtay intaad diinta ku bixin jirtay hadda waa inaad laba laabkeed iyo saddex laabkeed ku bixisaa hadday dhaqaale tahay hadday waqti tahay iyo hadday effort tahayba juhdi tahay waa inaad ku bixisaa waa inaanu aqbalnaa inaynu invest garaysano waxaynu aaminsanayn si uu u dhowrsoomi karo waxaa laga yaabaa in laga cawdo macallimiinta masaajidka wax dhigtaa oo dee wadcigaba lama socdaan ama si fiican uma garanayaan kani waa caynkan you should be haddaad rabto teen rabno macallinka dunida ugu fiican waa keeni kartaan magaaladiina tan ama Masar ka keena ama Soomaaliya ka keena ama meesha doontaan ka keeno waa keeni kartaan qof well trained ah experienced ah wax garanaya oo aad ilmihiina u dhibtaan waad keeni kartaan midinka waxayda bara laakiin maxay u baahan tahay inaad invest garaysataan inaad waqti ku bixisaan haddaad tidhaahdo wallaahi dee maalintiina waan soo shaqeeya goormaan wax dhigtaa dee waxaad joogantuun Soomaalidu doqon bay sheegaan yidhi war maxaad u cadayan weyday baa la yidho maalintiina geelaan raaca buu yidhi habeenkiina waan seexdaa goormaan cadaydaa anigaas wuxuu ka cawday inaanu waqti u helaynin cadaya inaanu waqti u helaynin wuxuu yidhi maalintiina geelaan raaca dee teena waa caynka haddaad tidhaahdo maalintiina geelaan raaca habeenkiina waan seexdaa ee goormaan diin bartaa تهدين لهم باكله واحد كلامه إذا هدينا هل كان ربنا إنه نشوجنه ديننا هيسنه أما دقنا هيسنه أما أفكارنا هيسنه وإنه الله نمدنا إنه إنفست كرينه وحين الناس ده إنه هيسن لهين أو هدينا عقل كون إنفست كرينه هدينا جهدي تايم كون إنفست كرينه هدينا لعب كون إنفست كرينه نبا وإنه تجاوبنا مركا إنتينا وهيسن كرنا إن شاء الله زيادتنا والرادعين كرنا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين